asalaamu calaykum. Waxaan la sheekaystay nin dhakhtar iyo gabadh dhakhtarad ah. Waxayna iga warrameen ama iga sheekeen arrin cajiib ah oo aad oola yaabay. Gabadha waxay iga warrantay arrin ku saabsan hablaha muslimaadka iyo galmada. Ninkuna wuxuu iga warramay maxay ahayd arrimo ku saabsan shaybaarka qalabka wax lagu baaro iyo daawooyinka. Wuxuu igu yiri qalabka wax lagu baaro asaga level kala ah. Waxa ugu dambeeya level 5. qalabka level 5 wax lagu baaro dhiiga waa international standard waa haddii lab oo waxa weeyaan level 5 ama standard baa jira ICO ugu dhahay wato haddii lagaaga baaro Kenya isbitaal waxa weeyaan certify Allah certify kaas ah oo aad la tagto Jarmalka, Mareykanka, Ingiriiska, Ruushka iyo wixii la mid ah wixii ay mashiinta kugu soo sheegto laguma laabanayo waayo waa level waxa international standard waa marka mashiintaas oo level 5 ka Kenya oo dhan wuxuu yiri laba isbitaal bis haysto labada isbitaal mid kamid ah Nairobi oo dhan hal branch kaliya ayay taalaa kan kalena waa laga yaabaa laba ama saddex in laga helo waayo wuxuu yiri waa mashiin aad iyo aad qaali ah meel kasta lama dhigi karo tan labaad ma aragtay buu yiri qof intii xanuun laga baaro xanuunka inta lagu sheego haddana isbitaal kale la geynayo haddana la dhahay xanuunkii ma qabo haddana mid kale la geynayo wuu qaba amaba isbitaal qof intii wadanka Kenya la geey qof Kenya baaritaan lagu sameeyay oo leeyahay qofka xanuunkaas uu qaba markii dibadda loo qaadaro laga waayay wuxuu yiri mashiimaha ay wax ku baara lagu baaro wili waa mashiimo accurate maaha marka marmar qaar wuxuu yiri qaladaad fara badan ay sameeyaan marka arrintaas jirtaa buu ugu dhahay waxyaalaha marka wuxuu yiri dadka dibadda ugu raasaan daawo hortaas keenta tan labaad buu ugu yiri daawooyinka wadanka lagu isticmaalo ama cirbadaha tusaale wuxuu yiri banaanka adiga cirbada wuxuu yiri lagu duro 300 shilin anaga 2300 aan ku jaaj gareynaa buu sababta wuxuu yiri cirbadan daawada anaga aan kugu durayno waa international standard waa daawo wuxuu yiri oo yacna quality-geeda waa very high laakiin tan wuxuu yiri adiga kugu duray waxa laga yaabaa buu yiri 10 dose oo taas ah hal dose tan isbitaalkan lagaaga duraya wuxuu yiri laga yaabaa inay isu dhigmaan waxaad arkaysaa buu yiri qof qabo pressure oo daawada pressure ka qaadanaya haddana pressure-ki sareeyo oo cirka marayo qof thyroid qabo oo daawada thyroid qaadanaya haddana cirka marayo qof macaan qabo daawada macaanka qaadanaya waxba u tirin marka wuxuu yiri farmashiyaha buu yiri daawooyinka lagu gado inta ugu badan standard maaha buu yiri waa iska generic that's why marka wuxuu yiri dadku xanuunka uga bixaynin daawadii ay cunaan xanuun uga sii qaadayaan baaritaanada wax qaldan marka wuxuu yiri wadankan wuxuu yiri aan joogno wax daawo wuxuu yiri standard gada isbitaalada way yiriin in yara gad because wuxuu yiri daawada waa qaali tusaale wuxuu yiri kaniinka banaanka laga gadaa yiri 10 shilin oo citizenka 10 laga gadaa anaga xabadki 50 shilin ka gadaynaa yiri sababtoo ah de wuxuu yiri waa standard quality xaq quality ama runa sheega ma bana sheego laakiin arrintaasi waa arrin jirta weey in daawo laga gado maanta oo aan waxba ku tirin in inta meel laga baaro shay lagu sheego meel kale aad tagto wax kale lagu sheego ana ugu dhacday okay taa waa mid tii markii dhakhtarka waxa weey oo marka wuxuu igu la dadaar wuxuu yiri hadaad tagayso yiri baaritaan wuxuu yiri baaritaanka wuxuu yiri markasta ha fiirin uu yiri baaritaan raqiis ah iyo daawo raqiis ah aday ka jaranta taa waa qodobka labaad soo laaban waxa weey islaantan iga warramayso eedu ma gabar muslimada waa gabar Kirishtaan marka waxaan ka wareystay meesha waxa ku qornaa waxyaalaha cudurrada la iska baaro ma aragtay qofka screening-ka sida dumarka kansarka dumarka ku dhaca ee xubinta taranka uga dhaca marka waxaan ku yiri qofta dumarka ah inay cudurkan iska baarto meeqa sano ayaa la rabaa markay jirto wuxuu igu yiri from the age oo ay qaangaarto waa inay iska baartaa way fiicantay inay iska baarto soo mar su'aalan weydiin waxaan ku dhahay xanuunkan kansarka oo ku dhaco dumarka oo xubinta taranka uga dhaco inta badan Afrikaanka waliba anu waxaan ku dhahay dadkeena ka soo jeedo Soomaalida wali qof oo dumar oo Soomaali ah oo aan garanayo leeyahay xubinta taranka waxa uga dhacay kansar aan wali ma arkin ma aqaan wax laga qari marka waxaan ku dhahay ma wax genetic miya marka waxay ugu tiri mid baa jirta bay tiri Soomaalida kaliya ma tiri xitaa muslimka dumarka muslimka ah muslimiinta xanuunkan kansarka ku dhaco taranka kuma badna bay tiri sababtu waxay tiri muslimaadku
gabadha muslimadda ay tiri aad bay u adagtay bay tiri inay gogol dhaaf samayso ama ay dhowr nin la seexato. waxaa laga yaabaa bay tiri maalintay qaangaartay ninkii ugu horreeyey ee ay guursatay bikrada iyadoo ay guursatay inay ku dhalmo baxda laga yaaba oo ay ku gabowday ku dhimato iyadoo weligeed aan ninka lala seexano. laakiin waxay tiri hablaha kale aan muslimiinta ahayn iyo weliba kuwa gaalada, gabadha waxay tiri from 18 to 30 boqol nin inay la seexataa laga yaaba, maalinkaa laga yaaba tiri inay 10 nin isku marto. marka waxay tiri galmada faraha badan oo ay kan la sameyn ayaa waxay keenaysaa bay tiri inay xanuunadaas ku dhacaan. markaasaa waxaan ku yidhi haddaba ka waran aan ku yidhi marka rabbiga adiga anigna abuurtay ayaa anaga inoo jideeyey una arkay inay maslaxadeena tahay in gabadhu ay hal nin ku ekaato oy zina iska ilaaliso, ninkuna zina iska ilaaliyo. bal arrintaas ka waran. waxay tiri waa arrin cajiib ay tiri, laakiin waxay tiri aqligii fahmi lahaa iyo ciddii ku wax qaadan lahayd aaway. laakiin waxaa xaqiiqa bay tiri hablaha muslimaadka ah ayagu xagga galmada markay timaado aad bay waxay tiri diintiina waad adag tahay. taasaa waxay keentaa bay tiri marka inay in badan ka badbaadaan in kansarka maxaa weeyaan xubinta taranka ku dhaco inay ka badbaadaan. marka waa arrin cajiib waa cibar wey, waa arrin cibar ah. marka gabadha muslimadda ah ee islam maxaad adigu hal nin ugu kooban tahay, maxaad hal nin u agtaagan tahay, haddaba ogaaw xikmad baa ku jirta, xikmad aad iyo aad u weyn ayuu rabbiga waxaa weeyaan kula doonay. asalaamu calaykum.